لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت أفرتا دمران كتاغن رقم هايسانو واتا هويدي دول تاغن واتا مامدي اويسا والاقا شي كليبا لغالبحي بيركي با لغالبحي كومونيتيغي واديدا inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto saaxiibayaal halkan waa Xamar Cadda TV muuqaal kale ayaan idin hinahay xogo sir ayaa ka soo kordhaya wiilka Soomaaliyeed ee kilida iyo beerka lagala baxay dhacdadaasi oo ka dhacday magaalada Minnesota ee gobolka Minneapolis ee wadanka Mareykanka haddaba inta badan Soomaalidu way ku dhiban yihiin wadamada qaarkood iyagoona la kulma dhibaatooyin fara badan wiilkan waxaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan in muddo ayuu reerkiisa ka maqnaa kadib waxa uu reerkiisa u sheegay inuu xanuunsan yahay isla markaana uu tagay isbitaal haddaba in muddo markii la weysanaa ay reerkiisu waxa ay bilaabeen inay baadi goobaan ilaa waanin meeyda isla markaana kilida iyo beerka lagala baxay subxaanallah haddaba hooyadiisa ayaa la kulantay dhacdadan markii loo sheegay wiilkeeda uu yahay meed waxa ay dalbatay in la tuso markii ay aragtay waxa ay la kulantay waxyaabo aan nabacaadi ahayn haddaba waxa ay sheegtay in community-ga ama bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota arrintan ay ka aamuseen isla markaana ay ka gaabsadeen maamadan oo wareysi bixisay waxa ay hoos ka xariiqday in arrintan ay tahay mid aad u dhibaateynaysa nolosheeda maadaama ay tahay hooyo Soomaaliyeed muddana ay baadi goobayso wiilkeeda haddaba waa dhacdo argagax iyo naxdin ku abuurtay guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka iyadoona markaasi ay tilmaameen in laga aamin baxay isbitaalada ku yaala wadankaasi oo xataa qaarkood ay adag tahay in ay u raadsadaan daawooyin iyo waliba arrimo kale oo la xiriira caafimaad maamadan waxa ay sheegtay in xaaladeeda hadda ay tahay mid aan la qiyaasi karin maadaama wiilkeeda oo ay muddo weysaneed ay la kulantay isagoo markaasi meed ah oo kilida iyo beerka lagala baxay wiilkan ayay magaciisa ku sheegtay Maxamed Xasan waxa ay sheegtay in muddo markii ay baadi goobaysay waxa ay bilowday inay la xiriirto isbitaalada ku yaala magaalada Minnesota waxayna isku dayeen sida ay maamada sheegtay in ay wax ka qariyaan isla markaana ay maldahaan xaaladaha jira maamadan ayaa ku celcelisay maxaad iiga qarinaysaan waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda ka maqan yahay waan dareemayaa xanuunka iyo dhibaatada iyo murugada meesha taala haddaba hooyadan waxa ay sheegtay in hadda xaaladeeda aan la soo koobi karin haddaba muuqaal ayaa lagu faafiyay baraha bulshada muuqaalkaasi oo ah in meydka oo la sii saarayo ambulance taasina ay keentay in 4 gabdhood ay ku joogaan ay sheegayaan in hal rag xataa meesha aysan ka muuqanin haddaba waa sheeko kale iyo naxdin meesheeda wadatee dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo wajahday xaalado markaasi halisteeda wadata maadaama wiilkan lagu sheegay Maxamed Xasan ee uu isbitaalkan u tagay inuu markaasi xaaladiisa caafimaad uu kormeero laakiin in la qalay kadibna kilida iyo beerka lagala baxay dadka badankii waxa ay ku tilmaameen isla markaana ay dalbadeen dadka arrintan ka dambeeyay in la baaro isla markaana cadaalada la marsiiyo isla markaana lagu sameeyo wax markaasi aysan ka soo laabasho lahayn maadaama ay ku dhaqaaqeen tilaabo markaasi aad u foolxun haddaba guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa eedeyn loo jeediyay maadaama arrintan ay ka aamuseen isla markaana aysan ka hadlin maamada waxa ay sheegtay in cidla ay taagan tahay ilaa iyo hadda cid u soo gurmatay oo waliba wax u qabatay aysan jirin xogo badan ayaa ka soo baxaya oo sir oo la xiriira inkastoo dadka qaarkii ay tilmaamayaan in arrintan ay tahay mid la siyaasadeynayo isla markaana ay habboon tahay in sharciga iyo waliba xeer ilaalinta loo daayo haddaba ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo laga soo saaray oo ku aadan wiilkan Soomaaliyeed ee kilida iyo beerka lagala baxay xilli uu markaasi daawo u doontay ama inuu isbaaro isbitaal ku yaala dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota hooyadan waxa ay sheegtay iyadoo waliba tiiraanyada murugada iyo xanuunka ka muuqataba aad yaabaysid xilliga ay wareysiga bixinaysay in xaaladeeda ay tahay mid aan la soo koobi karin isla markaana waxa ay dalbatay in la caawiyo maadaama ay tahay hooyo dhiban wiilkeeda lagu hordhibaateeyay ilaa iyo hadda cid wax u qabatayba aysan jirin xataa ay weysay qof markaasi meydka u qaada waxa ay hoosta ka xariiqday inay u baahan tahay gurmad ku aadan sidii markaasi cadaaladda wiilkeeda ay heli lahayd haddaba
Maamada waxa ay sheegtay sidoo kale iyadoo wareysiga uu aad u dheeraa ay kaga hadashay arrimo dhowr oo ku aadan in loo soo gurmado Soomaalida inta badan lagu dhibaateeyo dalka Mareykanka. Waxa ay sidoo kale ku nuuxnuuxsatay in bulshada ku dhaqan Mareykanka aysan waxba u qabanin, laakiin waa arrin runtii aad looga xumaado in dhacdadan ay ka dhacdo magaalada Minnesota oo weliba ay joogaan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo weliba u dooda xuquuqda aadanaha. إنا لله وإنا إليه راجعون sheekadayadu waa taas afartaa dumar aan ku taagannahay rag ma haysano maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa maydkayagii waa taa maamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitygii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله والنعم الوكيل Soomaaliya heerkaasaan marayna waanu ba'nay waanu baabanay nolol malihin naf malihin rag ma haysano waxaan ku noolahay ma jirto afartaa dumar ee ku joognaa إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون برقي بالغلا بحي ميل والبا waa la qashay waa taa waan eegaynaa rag la'aan ba halkaan tuftay xabaalahaasana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu wa tacaala noo maqan Soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyo in cuquba cirka idinkaga soo waa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsi daa'iqatul mawt xabaalahaasana lagu wada guray dabca sarmee cid kale maanu lahayn dabca sarmee المليين مسجد مليين أهل مليين أقارب مليين مدى النبي محمد حبارها سنة لقوة قري إنا لله وإنا إليه راجعون أفرتاد مرابان كجوغنا أفرتاد مرابان ننكا قال كابا سيدا أفكو محدنا قعمو محدنا كوفيد 19 ما قبا يوروحي إنا لله وإنا إليه راجعون sheekadayadu waa taas afartaa dumar aan ku taagannahay rag ma haysano maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa maydkayagii waa taa maamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitygii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله والنعم الوكيل Soomaaliya heerkaasaan marayna waanu ba'nay waanu baabanay nolol malihin naf malihin rag ma haysano waxaan ku noolahay ma jirto afartaa dumar ee ku joognaa إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون برقي بالغلا بحي ميل والبا waa la qashay waa taa waan eegaynaa rag la'aan ba halkaan tuftay xabaalahaasana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu wa tacaala noo maqan Soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyo in cuquba cirka idinkaga soo dhacda intii aan xaq rabin waa taas أفر can you open here she needs see inside all can you open all yes because she needs see Oh, لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واكا رقيقيا واكا إنا لله وإنا إليه راجعون
xamarcadda TV aad naga daawanaysan saaxiibayaal haddaad inagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad horey inoola joogteen madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysana qaybta comment inoogu reeb waan idin akhrin doonaa waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duceed leh muuqaalkan kiisa xigeenteena ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.